aad zina ku dhex jirto ciqaabtaasi kaama harayso maxaa ka mid ah ikhwaani ciqaabtaas waxaa ka mid ah zawaalul baraka min arrisqi risqigaaga ilaahay barakada ka qaadaa wax kasta oo shaqaysay baraka male baraka ma yeelanayo waxaa dhici karta qofku inuu dhaho war waan dadaalayaa intaa wuu ordayaa intaa wuu shaqaynayaa risqigiisi baraka male way isqaawisa jirkeeda nimanku daadaawanayaan telefoon buu caawadan ku hadlayaa tagis message aad moodinin iyo naag isqaba buu dirayaa qofkii waxyaabaha aan la yaabay waxaa ka mid ah waxaa la yidhi guryaha hadda waxyaabaha ka dhacaya dhallinyaradu zina uma haystaan waxaa dhici karta qof dhallinyaro ah inuu 10 saacadood ama 5 saacadood uu telefoon kula hadlayo qof ajnabi ah uu kula hadlayo sariirta hoosteedu ku jira wuu hurdaa hooyaa waxay hooyooyinka ka mida gurigayga jin baa ku jiraan u malayn oo markaan qolka ciyaalka galaba hadal baa yeeraya markaan soo galan ciyaalka way wada hurdaan ilaan gabadhaan dhegta hoosaa telefoon ugu jiraa ma la oga bustayna huwantahay caawo dhan waa saas wuu sinaysanaya caawo dhan zinu qofkii ku jiraa subaxii waxay leedahay hooy markii iskuulka la kicinaya ma la kicin karo war xaloo dhan hurda gabadha maxaa ku dhacay waa qof xaloo dhan zina ku jiray waxaa ikhwaani waxyaabaha ciqaabtaasi keenta waxaa ka mid ah ciqaabta waxaa ka mid ah nabigu inuu yidhi lam tadhar alfaaxishatu fii qawmin xataa yuclinuu biha faaxishadu qolo kuma faafto intay muujistaan ilaa fasha fiihim alawjaac cudurro baa ku faafa dadkaas cudur baa yimaada jirraa ilaah ku imtixaamaa waxaan la yaabay qiso mubki ah oo qofkii dhagaysta wallaahi uu ooyayo ayaa waxaa ka sheekeeyey wiil sacuudi ah oo dhallinyaro ah wuxuu wiilkaasu leeyahay wiil aad u fiican caafimaad qaba isagoo ah oo maalin suuq dhex maraya ayuu wuxuu arkay gabadh aad u qurux badan oo niqaaban oo meesha maraysa waxaan damcay inaan gabadhaan faduuliyo uu ka daba orday wuu la hadlay meel dukaanahay gashay markaan wuxuu ii dhaafay oo soo fiiriyey bay gacanteeda saas tiri waa calaamad caddaynaysa inay rabto markaasaan istaagay meel baan isku leexiyey way ii timid markaasay tiri wuu yidhi telefoonkaaga isii telefoonkiiba isiisa yaan siiyey habeen barkiiba i soo wacday buu yidhi balqisadaan dhegaysta waa waxa inta badan hadda dhallinyarada ka dhex dhaca wuxuu markay soo wacday gabadhi waan isbarannay maalmaan sheekaysanaynay waan isjeclaanay waxay ii sheegtay inay tahay gabar garoob ah inay tahay bay ii sheegtay waan wuxuu yidhi waan is aragnay makhaayadaan isu raacnay waxay igu tiri lacag baan leeyahay qof lacag le baan ahay oo dumar oo business woman ah laakiin lacag baan leeyahay wuxuu yidhi waa gabadh aad u dhowrsoon makhaayad baan wada tanaan wada cashaynaa inaan saa u taabta ma ogola wuxuu yidhi muddo markaan joognay waxaan isku dayi jirayba inaan taabto wax ku sameeyo way diiday muddo markaan joognay ayay maalinta dan waxay tiri buu yidhi niyo waxaan rabaa inaad si degdeg ay igu timaadid anoo ordayaan u tagay makhaayad markaasay tiri buu yidhi waxaan rabaa inaad intaad tigid baan ku siinaya tigid ba isiisay tigidkaan qaado qaahiro aad sacuudigu joogaa business baa ii imaanaya shirkad noocaasa alaab ii keenaysa ee hoteelka noocaasa deg markaad degtay telefoonkaas wac marka qofkay kaa qabto waxaad ku dhahdaa alaabtaasaan rabay heblaaya mas-uul aan ka ahay waraaqna way ii saxiixday buu yidhi inaan mas-uul ka ahay waan farxay buy gabadhi maanta waxbaa kuu dirsatayba shaqadiibu fasax ka qaatay waa la ii diiday fasaxi waan la dagaalamay ninkii booska ahaa markii dambe wuu tegey wuxuu yidhi markaan qaahiro tegay hotel aad u qurxoon baan degay telefoonkii markaan wacay gabadhii baa iga qabatay buy wax yarkad qolka igu xigay degan tahay say tiri surprise ma aan rabay inaan kuu sheega anaa meeshaan kugu ballansaday qolkii bay ugu timid gabadhii oo dhar qabtaa sidii qof dumar oo la aroosaya gabadhii buu ninkii la seexday wuxuu dhahaa markuu hadlayo yaa laytanii haddaana tigidkaa qaadan lahayn maxaa igu watoon u qaatay maxaan telefoonka habeenkaa u diray hoogayga ee uu dhihi jiray wiilkii maxaa hoteelkaa baas i dejiyey gabadhii markuu usbuuc la joogay saddexdii beri way exchange bay tigidka u samaysay ayuu soo noqday wiilkii asagoo weli faraxsan isma oga ayaa muddo kadib walaalkii iyo asagoo baabuur la socda baa shil galay accident galay zinada weli waa xambaarsanaya oo kama toobad keenin shilkii markay galeen ayaa walaalkii baa si aad u dhaawacmay isbitaalkii markii la geeyey buu yidhi ayaa walaalkii oo dhiig baxayaa la yidhi dhiig u shub dhiiggii baa layga qaaday muddo kadib ay dhakhaatiirta ii yimaadeen waxay dhaheen buu yidhi iska ilow dhiigaaga walaalkii miyuu dhintay subxaan allah dhiiggaygiiba ii soo celiyeen bi walaalkii miyuu dhintay saaliya maya maxaa dhacay may aidis bal qabtaa wiilkii meeshiibu ku suuxay wuu dhacay
weligii muusa u malaynaynin laakiin ilaahay ma moogeyn oga wuxuu samaynayo markaad isqurxinaysid iscarfinaysid telefoonada diraysid daahiyada xiranaysid allah kuma mooga waa raqiib catiida ma ku mooga wiilkii asagoo lafa noqday wuxuu yidhi usbuuc kadib bay gabadhii soo wacday markaasay tiri buu yidhi see tahay markaasaa iri buu yidhi dhib baa igu dhacay walaalkeena wuu dhintay markaasay tiri buu yidhi inaan ku arkaan rabaa markaasaa ku maya kuma arkayo maxaa dhacay maya inaan ku arka saan iri buu yidhi walaalda jiradaasaa laygu sheegay markaasa intay qosashay waxay tiri buu yidhi waxaa tahay qofkii ugu horreeyey waxaana ballan u qaaday rag badan oo adoo kalaa inaan saa ku sameeyo goodbye telefoonkiina way ku damisay ayadaa jirada qabtay ikhwaani ciqaabta zinadu waa noocaas qofku ma mooga zinada markuu samaynayo ilaahay ma mooga ha ogaado waxaan ku soo khatimayaa mawduucan zinada dhibkaas la eg horta dadku waa 4 qaybood ogaada qolo waa dadkii ilaahay dhowray oo dhowrsatay wey dadkii ilaahay dhowray oo dhowrsatay wey dadkaas ilaahay dhowray oo dhowrsaday waa dadkii allah tabaaraka wa tacaala markuu ka sheekeynay uu yaqad aflaxa almu'minuun alladina hum fi salaatihim khaashicuun muxuu ilaahay ku daray walladina hum lifuruujihim xaafiduun ilaahay farjigooda ilaaliyeen dadka sharaf waxay dhahaan soomaalida waxay dhihi jireen yaa masaajid dhagax dhigi kara waa yaan weligii zinaysanin haddaad weligaa zinaysanin abshir ku bishaarayso bilo dahab ah oo jannaa ku bishaarayso oo mu'minta ku bishaarayso haddaad ka tawbad keentay allah waa ghafuur rahiim taa zinaysatay waa sharaf dadka qaarkoodna waa dadka ilaahay zinada ku imtixaamay waylun lahum thumma waylun lahum way u dhamaatay way halaagsameen maalin haddii ilaahay kugu imtixaamay noloshaada intaad dhimanaysa ka oy haddaad qayb ka mid ah zinada ku jirta haddana hadda goy haddaad ninka adduunka ugu jeceshahay gabadhaad adduunka ugu jeceshahay xiriir la leedahay wax kale maa waa telefoon haddaad la leedahay goy intaada ilaah la kulmay adoo xambaarsan dembigaas dadka qaarkoodna waaba dadka u barobagaandheeyaba inay dadku zinaystaan kuwa gabdhaha yararkaa iibinayay oo kale dadka internetyada u furtay dadka mujtamaca dhexdiisa fasahaadinaya dadka gabdhihii masaakiintaa suuqa gelinaya dadkaas xataa haddaad mara ku caawiso qof sinaysanaya dharqaaqaawan aad u furto meel baad u samaysay lagu caweeyo haashiishadaa lagu cabaa meeshaan makhaayadaan baad u samaysay gabdhihii wiilal baa isugu yimid gurigan waa lagu baadheeya waa lagu qayilaa waxaad ogaataa waxaa tahay kuwa allah uu yidhi ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya waalaakhira wallahu yaclamu waantum laa taclamuun haddaad jeceshahay inaad dadka fasahaadisid cadaab ku bishaarayso weligaana ma liibaanaysid allahna wuu ka ogyahay qolada dadka ugu dambaysana waa maxay waa dadka reeba war iska daaya war zina waa alaamiruuna bilmacruuf wanahuna can almunkar zinada waxaa isaga ilaalisaa kow aragaaga laab indhahaaga qarso ha fiirin haddaad aragto qof qurux badan oo ku cajabiya ha fiirin indhahaaga hoos u dhig indhahaaga ka adkow haddaad tv-ga aragtid naa qaawan ama nin qaawan haddaad aragtid indhaha la raacin ogow markaad fiirisid wallaahi dhibicda ugu horrayso qalbigaa ku dhacda waa maxay iimaankii oo lagaa siiba iyo qalbi ingey ha ooyin hadhow hadhihin hadhow madaxay xanuuna ma seexdo buufis baan qabaa maxaa tv-ga ku kor fariisiiyey iyo macsiyada qodobka labaad waa maxay cadamu likhtilaat waxaad iska ilaalisaa ragga iyo dumarka isdhexgelaya iska ilaali inaad rag la sheekaysato dumar la sheekaysa ikhtilaadka iska ilaali nabiga sallallahu alayhi wasallam alaa laa yakhluwanna rajulun biimra'atin illa an yakuna naakixan aw daa maxramin nin yuusan naag la khalwoonin ilaa inuu qabo ama inuu maxram u yahay ma ahana wax kale iska daa guriga laisla fadhiisanayo meelaha cidlada oo laisla tagaayo gabdhaha wiilasha markaysaa ka su-aasha ugu horreysa waa maxay let's go out banaanka aan aadno meel waa las qarinaya masalada kale oo zinada kaa celinaysa waxaa weeye guurso haddaad dareen qabtid guurso maxay dhalinyarada u guursan laayihiin gabdho firi ay haystaan gabdhihii naba firi ay haystaan qofka ugu yar waa qofka telefoonka ugu sheekeeya iska daa guurso haddii ilaahay uu aad awood haysatid maxaa kale
ومسألة أقدرا عدم التبرج والصفور قاونت على اسكال عليه سبحان الله مجتمعي وبابايا ضد ماشي انا وكلا إمانا يبابلك أم حاضرة كديو تسوق وحيش تسوق قاوني نين كستو او جيرك اغا فيريو وكازينيست زانيت باتاي اضغنا اسكدا wax kale hadal cadar ismarista ama barfuum ama bukhur oo nin agtaada maraya uu ku bukhuriyo oo ku uriyo ilaahuma niqabnat zaniyat bata ku bishaarayso waxadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahuma dhamaantan ahano wa khasab wa zin مسألة قدام بيسا وحاوية ترك الخضوع بالقول هذا الكتشل عسل اسكا إلالي هذا كان فورمال هذا عارك زويل إيا قبر وحولي أبايا معانتو أبو معان قروا معان كذا الدمي قروا معان كسر الدمسة فيري والزنا دي بالله قرحنا يا ورواه محي توحان ومايا هذا وحا صوب حديبه هني سويت هارد يسان وحان انه قفكو دلدلو تجلس مساجين اي عيالكينو دريان فيريا تلفونada ay ku hadlayaan dhageysta waxa ay ku hadlayaan dhageysta gurigaaga zina ku camir adu ma ogid wiilkii uu zinaysanay waa qayb zina gabadha way zinaysanaysa waa qayb zina gurigii zina ka dhex socota adu waxa la haystaa zina inuu nin guriga yimaado gabdhaha ka fulfulo ma aha inta kaliya إلهي وحان كبرينا إنه نجا إلاليو زنا موقتة يمد قرصومبا قلوبتنا أطاهريو مجتمعنا أطاهريو قبلها يويلش أنا إنه إلاليو والله يقول الحق ويهدي السبيل وبالله توفيق.